don't cry don't cry don't cry don't cry ha oynin ya تمام ha oynin anaa ku caawinaya anaa ii imaanaysa anaa ku soo wadanaya don't worry bismillaahi raxmaani raxiim saa ha oynin maamo please ha oynin ha oynin ya تمام you have to be strong for yourself oohin waxba kuma taaranaysa ma fahante ha oynin you have to be proud soomaaliyay soo dhawaada waa idin salaamay soo dhawaada markaad soo badataana qofaan la hadlayaa habaryaro ha oynin adkayso gabar yar baa tahay dhibaatadaanayto wax walba ilaahay baa keeno shaxshaxlay soo dhawaada dhibaatadan wax walba ilaahay baa keena wax walbana waxaad tidhaahdaa alxamdulilaah alshukrilah maanta 21 sanaa jirtaa haddaad rabtid qof soomaali aa la noolaatid aniga baasiboor baa qabtaa tikidka anaa kuu soo dirsanaya markaan soo laabtada safaraan ahay aniga kaala ii imaaw anigu ila noolaaw اوكي xur baa tahay 21 sanaa jirtaa meesha rabtaa ka dhici kartaa haddii hooyo iyo aabba iyo reerka dhibaato aa kala kulantay aniga kuu nool ii imaaw guri weynaan kaligay deganahay anaa ila noolaanaysaa ifka intaa ka nooshahay iskool baan ku geysanayaa luuqadaan ku barayaa anaa ila noolaanaysaa ان شاء الله ha oynin gabar yar baa tahay waa lagaa gardaran yahay soomaalida ilmahan dhan lama dhagaysano kuwaana qaata caawa ha lagu waana qaata gabadhan yar oo annaga aan dhalno 21 jirka ah kuwaana qaata ilmihiina dhagaysto ilaa aa ka soo badataanna ma sii daynay gabadhan waxay soo wada wax maskaxda ka weyn mucjizo waa mucjizo ilaa aa ka soo badataan anigu wax meesha aan dadka ku soo dhimaashtiri ilaa aa ka soo bahabar macaan ha eedo ha oynin yaa تمام ha oynin acuudu billaahi min ashaydaani rajiim quraan akhrista ilaahay caafimaadoo ku siiyey alxamdulilah dheh wax walba kugu dhacana wax anaa ku aqaana adiga horta iska bax wax walba oo kugu dhacana qadar allay kugu dhacaan ma fahantay ها marka waxaan rabaa sugu codkan kuu dheerayna iisu telefoonka caadigaa xira iisu gabadha waxa ku dhaca waa ogaanaysiine soo badta markaad soo badata hadhow hana igu soo celi iyo internetka dhinaab iga baxay iisuga habarir ma ku jirtaa eedo qadka ma ku jirtaa ها ha okay saa qadka mulka macow macmacaa ku siiya soo dhawaa xaawa soo dhawaada dhammaantiin waa idin salaamay okay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soomaaliya caawa gabadha markaa maqashaan dhagihiina qacka kacay kowdhaha wax mucjizo ah aan dhagahayga anigu ii deeqi waayey gabadhan ii sheegtay idinkaa maqlaysiin asxaan ii sameeya intaa ahaan jirteen ahaada haddaa la kala seexdayna halay sheego waa la kala seexday halay dhaha gabadhaanitu telefoonku waa ka damina habeen dambaan soo qabanaa gabadhan haddaa la kala seexday soomaali kala seexatayna biriq soo dhawaaw ubax soo dhow dhammaantiin waa idin salaamay qof ooynayaa telefoonka ku jiro hal ma idin salaami kara soo dhawaada okay hadda waa soo badateen ilaa 60 qof ay kusoo darsoonta ilaa 60 qof ay kusoo darsoonta kala 200 markaa gaartaan baan gabadhan anigu arrinkeeda keenayaa cabdicasiis waa mahadsantahay cabdifataax hawo macaan ma joogtaa macmacaan ku siisa juuda kaasiya okay program gabadha codkan sii daynaa markaanayto youtube channelkaygana soo gelin waa la soo jeeda da soo jeedaan okay habaryaro ها هبا habaryar macaan horta soo dhawaaw هاي gabar yar baa tahay 21 sana jirtaa maaho ها okay waana ka xumahay waxa kugu dhacay dhibaatada adiga lagu gaarsiiyey horta qadar allay u dhacday shaydaankana meesha wuu ku jiraa waana ka xumahay in dhibaatada lagu geeyo maantana in aad la joogto reer Soomaaliyeed aadan aqoon u lahayn adigoo waalidkaaga magaalada kula joogana waa ayaan darro ها marka waxaan ku leeyahay haddaad u baahan tahay meel aad ku noolaatid anigu ii imaaw anigu hadda safaraan ahay safarka markaan ka soo laabta anaa ku soo wacaya baasiboor baa leedahay adduunka meesha rabtida ku noolaan kartaa anigu kaala Sweden guri weyn baan deganahay kaligay ma ahay kariimkay anigu ila noolaaw
aniga ila cuntay meeshaan aada ila aad waxaan raba ila sameey halkan sariirtana wada qaybsanaynaa insha allah ma fahantay haa habo ina gabar yar soomaali ah oo saan iyu oys oo saan loo soo dhibaatanays waa ayaan darro ha oynin ha oynin ha oynin wax walba way dhacaan alxamdulilah dheh horta maanta waxaan u mahadcelinayaa maamada gurigeeda aad joogtid iyadana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maanta adigoo UK jooga oo London ma joogtido haa adigoo Birmingham ha Birmingham 2 hours away. ya 2 hours away from London 2 hours from London Birmingham ma joogta maho maanta waxaad heli kartaa 21 jir baa tahay nin ajaanib intaa raacid balaayo qamri xashiish wax walbuu ku bari lahaa maanta alxamdulilah dha wixii oo dhanna kuma jirtid cid soomaaliba ilmaha iskoolka asla dhigataan hooyadooda gurigooda alla joogtaa marka horta alxamdulilah alshukrilah dha marka ugu horeyso ma fahantay haa marka waxaan kuu sheegay cabdirasaaq alteesto waa ku salaam amoore miya soo dhawow waxaan rabaa inaan ogaado waxaasay u dhaceen ma ii sheegi kartaa haa anigoo 13 jir ah oo fadhiga hoose jiifna aniga walaashaydaa fadhiga hoose jiifnay waxaan cunay watermelon oo so waan isku kaajay like 12 meelaha habeenkii waan isku kaajay haye marka intaan kacay waan nadiifiyey kursigii anigana waxaan waayay suwaal aan xirto because suwaalkan xiran lahaa wuxuu yaalay dusha hooyo qolkeedu yaalay hooyona iyagoo dhan way jiifeen so aniga kursigii aan ku noqday waan dekiyaan saaray shaad dheeraan iska xirnaa marka like I say couple of minutes 30 minutes to an hour aabaa soo degay so anaga waxaan kusoo kornay aaboo bogana gelinaya so waxba khalad saas maan ugu ujeednay so aabuu yimi wuu isoo agsaaxday wuxuu igu yiri aniga waxaan ku yiri aabo hoosta dekaha gelin wuxuu yiri waayo waan isku kaajiso ma xirni suwaal iyo nigis waxaan la xiranahay shaad marka wuxuu yiri hayo waa okay marka waxaan dareemay asigoo ita taabanaya waan qaboobay waan cabsaday marka waxba maan ahan marka khadiija madaxeeda walaasheeda yar khadiija madaxeeda soo taagtay marka gacantiisa wuu dhacay wuxuu yiri oo khadiija hooyadaada ku doonaysa bax dusha tag hooyaa ku doonaysa waxay tiri okay anigana waan cabsanay waxba ma oran karo hadalkii afkam ka soo baxayo marka dushu ay tagtay waxaan dareemay dekaha agteeda oo kor iyo hoos soconay like wuxuu sameynaya aniga marka aniga u taabsanaynin hal mar daawada iga geliyay haye daawada iga geliyay habeenkaasoo dhan anigu la igu ciyaarayay ha oynin haye aniga igu ciyaaray dabada xooga iyo xanuunsa kas dabada uun igaaga sameeyay and then for months or like the second daygii anagoo dhan ah hoos joogna anigoo cabsanayo anigu wuxuu igu yiri dhagaha oo aabayaasha oo dhan ilmahooda sidanay ku sameeyaan waa okay so cabsanin anigana ma doonaynin waxaan leeyahay inta aniga sin I thought I was committing sin because aabahayga maskaxdeeda waxaan isku jeeda waxaan aabbaha wuu ku sameeya ilmihiisa laakiin aniga maskaxdeeda waxay ugu jirta ma doonayo laakiin hadda ilaahay wuxuu ii qorayaa oo xaaraam camal because aabahaygan diiday marka anigoo second day anagoo dhan hoos joogna aniga sariirta agtiisa aan jiifaa laakiin wuxuu doonay inuu bagga i gashto anigana waan iska riixayaa asigana wuxuu waay maxaad ii riixaysaa naya xaggan imaa marka wuxuu maayo marka hooyaasaa ii eegtay hooyana waxay naaska siinaysay walaalkaygiya
naaska siinaysa and then hooyo waxay ugu like third fourth day hooyo waxay ugu why maxaad iskaga dhigaysaa inuu aabahaaga nin shisheeye yahay anina waxba ma oran waan cabsaday so for months like 3 months 3 below waa saddex bil meelaha wuxuu ugu sameeyeen dabada and then excuses oo igu oranay like first wuxuu yiri aabayaasha wuxuu ku sameeyaan ilmahooda marka wuxuu yiri waxaan ku ready kaaga dhigaya ninkaaga sida u ogaatid waxyaalaha loo sameeyo marka wuxuu yiri hooyadaada ay soo diiday aabahaaga waa inaa habi ka dhigtid marka dabadu ahaa after 3 months wuxuu noqday horta like horteedu ku sameynaya so hadda labada meel ugu sameynaya marka any chance aan guriga joogo marka even aan ill noqdo aan jirado weli iskuulka waan tegi jiray because waan cabsanay ma doonayo waxaan so the first year first bill waxaan umlay okay uu ahaa hortay hoos igaaga sameynaya xanuun waxaan iska riixay waxaan umlay inuu ilaahay ii qoriyo oo inanta waa inaan xun aabaheeda diiday marka hal maalin iskuulkaanu joognay waxaanu daawanayay precious waxa weeye movie oo nin hooyada ninkeeda gabadhu fuuliya ilmaha ka dhashay iyo wax kasta so markaanu daawanayna gacantan taagay macalinka waxa ka wada macalin waxaan okay ma aha ilmaha oo dhan wuu ku dhacaa intuu movie oo dhan uu joojiyo wuxuu ku yiri haddii waxaan kugu dhacayo waa inaa hadda hadashid bas waxaan okay maha aabayaasha ma sameeyaan waxaan so waan aamusay marka qofka waxaan u arkay asin anigu waxaan igu dhacaya so hadda guriga markaan tago aan garanin gurigan tagi wuxuu igu dhacayo waxaan bilaabay inaan dagaaltimo wax kasta dagaal asigana wuxuu keenay inuu xoogsado xoog ii qabto inuu igu sameeyo after 14 meelaha waxa iga soo dhacday baby anigoo jiifa aniga hal maalin oo jiifay waxaan ku kacay sariirta oo diib ka buuxa anigana diib wada leenahay hooyadana aniga waxaan leeyahay inuu dhiiggayga yahay maxay qala hooyo my period came hooyada timi intay sponge way nadiifinaysa haya aniga kusoo gadaya buushka iyo wax kasta aniga markaan suuliga galay hilib hoosteeda like marka suwaalka bixiyo hilib ku jira suwaalka iyo nigiska hilib dabarka ay xanuunaya lugama waa xanuunaya aniga waxaan isku leeyahay waa dhiig xanuunka waa normal second day dhiig magamaan 1 dot oo like dhiig u akeen oo pink hoosteeda ka timi marka couple months after uu igu sameynaya qolkood hooyo dusha qolkeedaan u joognaa uu igu sameynaya aniga waxaan qora ilaahayo please hooyo ii soo gasho please ilaahayo waan cabsanaya ii soo gasho ma doonayo si xoog u haya gacmihiisa wuxuu igeli like spider camal intuu saa ii qabsaday uu igu sameynaya hooyo way soo gashay alxamdulillah hooyo soo gashay hooyo inta abaabka soo furtay eegtay ilaan marka abaabka la fuqolka waa mugdi marka abaabka la fuqo nalka soo galaya wax kasta loo jeeda hooyada saa u furtay eegtay aniga oo asiga i kor jiifo abaabka xirta jinjirti hoos tagtay anigana I gave up dagaalkii aan dagaaltamay I gave up waxaan tiri okay then wuu ugu sii sameeyay so markaan ahaa 15 uu joogsaday because dagaalkii waxaan keenay inaan is wada fafeedno like grown men like laba nin oo waaweyn oo isdilaya aanu keenay 16 markaan 16 noqday wuxuu qolkii ii soo galay asigoo bindi haysta wuxuu doonay inuu mar kale igu sameeyo qoortii ii geeyo wuxuu in like aamuso marka adigoo saas mindida igu hayo oo gacanta kale suwaalkiisa bixinaya aan like waan ka furfurtay markaa lugtaydu gooyay markuu lugta gooyay waan ka cari waxaan u tagay jaarka wiilkan kalam la orodaan u tagay hooyadii snares ahayd iyada lugta ii nadiifisay oo ii xirtay marka hadda hooyada waan u sheegay 17 reasonkan ugu aamusay is because aabay wuxuu yiri oo ninka wuxuu yiri
waxaan sheego first ma la aaminayo second of all haddaa wax oratid anigaa kow kaasinaya habeer waxaan doonaya meeqa jeer inaan kow iska siiyo waa adigu isdishid waxaan iska soo calaqay janjarta sidaan le u dhinto kusma doonaynin xanuunka adi maa jaraanjarta iska soo tuuray anigaa janjarta iska tuuray kasmaba doonaynin xanuunka kas waan ogaa maalintaas intuu soo noqonay mar kale ugu samaynayo son janjartan iska tuuray anigoo calaqan hooya iga soo saartay oo inta xariga iga goysay CPR ay ugu samaysay waan kacay ma xarag baad isku xirtay ma jaraanjarta baad kusoo tuuri rabtay habar yaro ma xarag intaa isku xirtay jaraanjarta kusoo tuuri rabtay ha waanba iska tuuray waa iska tuurtay haye waan la laaqaday hooya intay goysay xariga ay CPR i siisay haye so waxay ugu tiri waa maxaase u samaysay ma doonay inaan joogo marka waxay tiri naayaas waxaas weligaaga samaynin yaa haddaa wax ku haya aniga ii sheeg waxay haye marka maskaxdeeda waxa ku jirta waad igu soo gashay ha qolkay kugu soo gashay way ku aragtay adoo aabbe wax kugu samaynaya maxay wax kaaga qaban weysaa maskaxdaada ku jirtay haye ha ona habiyo ninkan wuxuu hooyo ku samayn jiray iyadoo uur leh uu kow ka siin jiray uu dili jiray stoofka ku kartaa iyadoo cunto karinayso uu madaxeedu hoos ugu gelin jiray ku kartoo daaran ku karka oo daaran muu hooyo madaxa ugu gelin jiray hoos ha uu sii dili jiray aniga always u hiilin jiray aniga oran jiray alla hooyadaydaa taabnin markuu saa ii soo jiraysto waan isku kaaji jiray bas waan ogaa inuu kow iga siinayo hooyana ilmaha dasha u carin jiro qolkay isku xiri jireen anigana kow iga siinaya suunu iisoo qaaday ulu iisoo qaaday dacasu iisoo qaaday anything markuu daalo wuxuu ogana shaatkaaga bixi su'aalka bixi dulka saaxo dulka marka saaxaysu ulu igugu dhifanaya asagaa dhalay soomaalida suga habarma eedu waxir ii sug soomaalida i weydiinay horta waxaa idiin sheegaa dadka beeshkayga ku xiran haddaad idinka isoo dhagaysan weyseen ee gabadhan 20 sano dhibaato ku jirta cid soo dhagaysan weyse weligeed cid dhagaysta ma laha haddaadan idinka isdhagaysan anigaa dhagaysta ma fahantay anigaa dhalay dhibla'aanaa dhalay ma fahanteen haddaadan walaashaa edab aadan ku dhagaysanaynin iska aamuso aabbihii dhala bay ka sheekaynaysaa so haye haru soco eedo mii maqasha haye ha so hooyo wuu dil anigu like igu dili jira waayo wax kasta igugu dhufan jiray aroorta kale markuuna for no reason u dilayo oo hooyana uu gacanta u qaaday aniga always oranka may aad taabin hooyadayda daa okay adigu boolis ma u wacday eeday waxaan ku weydiiyey boolis ma ugu wacday markaa adigu ninka aabbo waxaas markuu samaynaya maayo waan cabsaday wuxuu yiri qofna ma ii aaminayo haye ana waxaan u cabsanayo walaalahayga kas waxa lagu waxaan ka fakiray haddaan waco walaalahayga la qaadanayo systemkana ogada waa messed up ilmihii oo hadda la qaatay waxay noqonayaan qaar xashiish cabiya qaar alcohol cabiya qaar la fuulayo wax kasta aniga systemka saas maan u doonaynin walaalahayga inay galaan so afkayga waxaan haystay anigu igu dhacay walaalahayga ma ku dhacayaan so inaan aamuso ilaa hooya inacaysa haddooto walaalahayga ma inacayaan okay marka maxaa dhacay markii dambe maxaa dhacay okay ilmaha markay kaa soo dilmeen dhiiga kugu dhacay oo maxaa lagu dhahaa ii sheeg oo aad rafaaday oo aabbo uu dili jiro hooyo ee dhibaato aad soo martay caqaba aad soo martay ugu dambayskii maxaa dhacay ugu dambayska 17 marka ahaa hooyaan u sheegay hooyaad u sheegtay ha haye maxaad ku tiraad hooyada ha hooyada maxaa ku tiraad 17ka markaa jirtay waxaan ku ogaday hooyoy aaba wuxuu iga dhigin jiray naag reasonka dusha ila anigi ooli ii wici jiray oo oran jiray may saciida bogi iglinaysa may saciida i saaxinaysa may saciida ii raacaysa holland may saciida ii raacaysa london iyo meelaha it's because anigu iga dhigin jiray naag wuxuu iga oran jiray ina hooyadaada habbi ma iga dhigayso hooyadaada maanta ma igu samaynin so adiga happy inaad iga digtid adiga inaan waxaa ii samaysid reasonkaasoo dusha ila ii kaxaysan jiray inuu ifuulo oo naag iga dhigto hooyna wejigeeda feersi wuxuu ahaa like shock
way naxday haye and then waxay tiri aniga wax sameynaya waan cabsanaya aan sheegin kas kow iga siinaya marka waxay tiri haye aniga like I say 1 week later aniga walaashayda hadda gurigeeda joogo friendkayga malcaamadan joognay waayo saa wacda waxay u tiri aabahaaga ku raadinaya waxay waayo waxay tiri ku raadinaya waxay waad u sheegtay waxay tiri ha ku raadinaya haye aniga gurigan ka baxay guriga hooyan tagay waan waxaan ku oqday aawe aabo adigu kuu soo baxay 2 seconds later asiga soo galay asigoo dafta badan wuxuu yiri alla soo gal ilma qolka ka baxa soo gal saciidaha soo gal asigoo warbaraya wuxuu saciidahay wax doonaysa inaan hooyo iyo familka aan lose gareys wax doonaysa inuu wax kasta naga dhadhawaco aan xiirmay marka wuxuu hay hadalkoo dhan bedel oro farti aan ku geliyay hadalkoo dhan bedel maxaa hadalkoo dhan bedelaysaa haya farta u bedel iska dhig inaan farta hoostaada geliyay inaan farta hoostaada geli aan wax kale ku gelinin habiya walaashayda walaalkayga iyo hooyaa maqlay iyagoo asigoo saa oranaya haye way maqleen asigoo oranaya hadalka bedel waxay ma bedelaya hadalka waa run maaha ilmahan nuusgaranaya hooyadaadan nuusgaranaya waxaase doonaysa inuu dhaco listen waad ugu samaysa adiga khaladka leh maxaad igugu samaysay saas marka 2 minutes later intuu hooyo la hadlay carabiyuu ku hadlayay laakiin waan qartay wuxuu oranaya gabadha waa beenteeda waa confused waa stressed wax kasta examskeedii wax kasta soo socda so waxay u baahan tahay break ana wuxuu ugu yiri Canada tag habiya waan garanay waxa Canada jooga waxa jirta naag oo ay isgaranayaan oo fasha garanaysa oo sixir ka samaysa a'uudu billahi minash shaytaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wuxuu maya ma tagay Canada hadalkayga ma bedel waad igu samaysay asigana maskaxda madaxu qabsanaya oranay my saas ma badafirayo dafarin anigana waan late noqdo waan saaxday second day wuu joogaa ana hooyada ma dooni inuu gurigan joogo mise anigaa baxaya hooy ninkan wuu igu sameeyay waxaan waxay tiri haye maxaad doonaysaa waxay dee ninka fur on top of that ilmaha guriga yuu imanayo ilmaha uu ag imanin waxay tiri haye hooyo ay furtay laakiin waxay ku khaladay ilmahay hadda geysay anin 24/7 waxaan oona hooyo ninka muxuu guriga u soo galaya waad iska kala tagteen hooyo waa xaaraan ma aha inaad isku gaari aad ku jirtiin ilmaha xagga abaabka uga sii hooyo yuu soo galay intaas oonan ku lahaa hooyo uu soo galay haddana waxay oonaysaa gabadhan 3 years ay stress i gelisay waxaan ku oona hooyo soo galin guriga that's it hooyo waxaasuu sameynaya so anyone waan ka tagay guriga like 7 months ago aan guriga ka baxay waxaan tagay jaarka for 3 months marka eedadeyda hadda igu tiri my guriga imaam anaga ila joog waxaan hayaan okay walaasheeda yar oo 15 ka soo guriga timi aniga ma ii sheegay waxay sheegtay habeer iyo inanteeda kale aabo wuu itataabtay anigoo iskuulka ka yimi oo PE shortkayga xiran عبايد وانسك ساري في شوت كي حرن ويأكل ويتطابط ما وسكت تطابط يجد وين خبودي and then I think هواية تمي مثلا neighbor كها يمي مكو مخلو جوز أنت يدا عرت سولك إيش بحرتوه ويسي إيه ساو شكل أنا مكان وصام مخلو حير ما بوليس كانوا شبه مثلا أنا قاعدين كوكسيني ولا أنا يقول حنقول تجيب because هاي ما كحنين هاي واحد ما يتشوتشينين ولا شيء هاي إيه أنت ما حتى because هاي نيك وصومالي هي وصومالي هاي سعيدة أغن كده وحبة ما يكون سميني سيدي أنا جي أمينيسا ولا شيء هذا كده أنا حتى غيزم أنا واحد عاونات تنقبهنا إس ولا له هيجا أنا يقول دعي واقع لكن ولا له هيك متوني إنه واحد يقول دعي بس ويوالني حبيب هذا ولا شيء هو تتابتي she can't concentrate exam كوي fail كرانيسا أنا هو تتابتي مو بقولين وحبة مو كسمين لو هو تتابتي
aniga hadduu aniga waxay ugu samayn lahaa ugu sameey one time walaasheeda way waalanaysaa ani waxaan u baahnaa caawinaad inaan walaalahayga save garay hooyadeedu tuso hooya ninkan saan ugu sameey ilaa asiga daba socotaa okay wax ma ku weydiiyaa booliiska adigoo aad wacday aad u sheegtay arrinta booliiska marka maxay ku jira ilaan booliiska adigu wacdee booliiska waxay ka qaadeen statement anna waxay ogadeen waxay doonay inaan sameeyo video statement so emotionskayga ay qabsadaan waxay rahayeen social services was involved social serviceska waxay u tageen guriga markay tageen hooyo waxay ka dhaadhicisay waa happy ilmaha waa happy aabahoodan happy uu ku yahay aabahoodan waxba bay ku sameynay intaasi ka dhaadhicisay hadduu waxaa run yahay waay maxay walaasheed usoo carartay waay maxay anaga nagu timi eedadeed u timi ilaa aniga may doonayn inay ii sheegto kas waa ogtahay inaan xanaaqayo eedadeed u timi waay maxay u oranaysaa waxa hadduu been yahay haddana hooyadeed meelaha waxay ka socotaa oranaysaa saciido suuqay gashay reasonkay waxaan u sheegaysa waxay doonaysaa freedom first waxay tiri 3 years gabadhan ay ugu stress garaysay hadalkan ay ugu dhibtay haddana eedayaasheeda kale london degan waxay ku orantaa hadday hadalka teeto kas waxay doonaysaa niman kale la seexato haye so which one is it ma 3 years ago miya mase hadduu hadalkan soo baxay hooyo hadalkeeda is not like one way ma aha wuu iskala badbedelayaa ninkaas uun haddana way igu xanaaqtay markaan booliiska wacay waxay tir gurigay iisoo galay masaa mindiyaan kaa taagay because ninkaan booliiska ugu wacay kas runtan doonaya inaan u sheegay inaan furfiro hooyo waa ka caddaynteeda wuu igu sameeyey ilmaha ka ilaali wuu ku samayn doonaa laakiin malay aaminsana hooyo waa taa no once eedadeeda weydiisay siday tahay saciida no once hadduu waxaan been ahaan lahaa ninkaa muu iman lahayn muu igu oran lahayn aaba maxaan kugu sameeyey muu ila hadli lahayn hooyana ma ila hadli lahayn ma iyaga own lifekooda degan aniga maba lay doonayo anigana cawrada ah aniga hooyadeeda caawin jiray anigaa safegayn jiray markuu gacanta saari jiray aniga u hiilin jiray walaalahay kale ma hiilin jiray aniga hooyadeed u hiilin jiray hooyadeedna once ii hiilisay hooyadeedna once igu ninkaa ku khaylisay ku tira ninkaa gurigaaga soo galay inanteeda taaba no once hooyadeeda saasir aniga maba ii jecla maba ii doonayso because wantan sheegaya I don't know what to do. Because waxaan sameeyo runtan sheegaya ilaahay wuxuu been yaala sheega runta ku socda waa ta runtan ku socda hooyadeeda way nacday runtan sheegaya hooyadeeda may doonaysa anigana hooyadeeda waan doonaya eedu ma kula joogtaa eedi ii weydiinay ma rabtaa inay hadashaday ku tiraada dhe habarhano eedu ii weydi inay hadashadee rabta asalaamu calaykum codkaa kuu furan ukhtii codkaa kuu furan kow dheh kun qofna wayna dhegaysanaysaa laba dheh waxaana waxaa waaye waa masiibo soomaali way ka dhacdaa waxaan waa cudur ma fahanta horta soomaalida waa inay ogaadaan waxaan waa cudurkan qof walbuu ka dhacayaa cudurkan qof walbuu ku dhacaa ma fahanta cudurkan ummadda allaha ka qabto anigu I believe in waxaan cudur yahay dadka soomaalida waxay anagu muslimaan hanaguma dhaco laakiin qof walba inuu cudurkan ku dhacaya anigu waa believe garaysanahay cudurkana inta qabta allaha ka daweeya inta aanan qabinna allaha kuma rido gabadhan sheekada isay igugu sheegtay waa very sad waxaa waaye meel baa i go'day siday ii sheegtayna gabadhan adigay kula joogtaa 4 bilood
marka waxaan ku weydiinaya waxa waaye waana gabar yar oo lasoo fara xumeeyey waxay tiraa 14 sano markaan jira ilma iga soo dilmay saasay ku tiri waxay igu tiraahday cid i dhageysan